nafaqadan haddaa isticmaashid hubaal inuu wejiga kuu cadaanayo kuuna cayilayo kush bucbuc kuu noqonayo. Waa nafaqo yaroo fudud oo wejiga cadaynayso daalka, khayraada, wasaqda, madowga, jacdadka waxoo dhan way ka dejinaysaa wejigana aad u bilaysaa, wejigana hadde way cadaynaysaa, quruxna way ka dhigaysaa. lagama sheekeyn karo hadda walaalihii insha Allah kana bogta videoga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. nafaqadan labada weji waa loo isticmaali karaa, wejiga saliida leh iyo wejiga qalalan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta ku xiran najax qurxinta soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena najax qurxinta uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin hadeeniisida cashir kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. si aad titilka video kusoo aragteen qaybta ugu horeysa video kusoo daawateen wixii hadal ah qaybta ugu horeysa videoga ayaan kusoo koobay walaalahayga. marka hadalka iyo warka hadaynu kuguma badinaaye nafaqadan dheelitiranka oo wejiga lagu dayactirayo ayaan maanta in la sheer gareynayaa oo hadda aan kasoo tuurinayna insha Allah. igala bogta videoga soo socda waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. waana ku mahadsantiin walaalahayga mar walba sida quruxda badan aa ila socotiin. bismillaah, nafaqadii fududeed ayaan hagaajisanaynaa walaalahayga, waan isku dardarsanaynaa. marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo alaabta aan iskula dardaro. sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay waxa caaga yarka waxa inoogu jira waxa waaye waa xulbad shiidan waaye walaalahayga. xulbad shiidan ayaa marka hore u baahan tahay. xulbada shiidan hadda meel kasta ayaa laga helaa. xulbadii ayaan walaalahayga wax yar kasoo daray, weelkii ayaan wax yar aan ku shubanay, qaandada haafkeeda waaye, haafkiiyo wada buuxana maahan sidaa wada jideen. sidoo kale waxaa kale u baahan tahay waxa caagan kale waxa inoogu jira waxa waaye waa shumburo waaye walaalahayga. shumburahan dhowr jeer aan arkay asxaab soo weydiinaysa kommentiyadooda oo la abaa shumburo maxaa la shumburo waxaa la dhahaa geedkan cad ayaa la dhahaa, waxaana lagu dhaqaa wejiga iyo jirka ayaa lagu dhaqaa oo lagu nadiifiyaa oo lagu cadeeyaa. waxaana lagu iibiyaa meelaha haruuda, cusburka iyo qasilka meelaha lagu gado ayaad ka helaysiin walaalahayga. shumburigii qaanda haafkeed ayaan ku daray walaalahayga alaabtii weelkeena ugu jirtay. sidoo kale waxaan kaloo ku daray haruud ayaan ku darayaa walaalahayga. waa haruudii caadiga ahayd waaye, ma ahan midii cunada, waa midii jirka lagu dhaqaayay. sidoo kale walaalahayga waxaan kaloo ku darayaa malab ayaan ku darayaa, malab yar ayaan hadda aan ku daray. inaba caadi maahan alaabtan. sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa yoogad ayaan ku darayaa walaalahayga. hal qaando yoogada ayaan ku daray. waa yoogadkii plainka ahaa waaye, midka aan isticmaalayo waa faniilo. yoogadkaasaa laba nooca, mid faniila iyo mid plain ay ku qoran tahay. waa midka aniga haatan isticmaalayo waa noocan, halkaas ayay ugu qoran tahay faniila ayaa ku qoran sidaa u wada jeedin walaalahayga. midka kalena halkaa waxaa ugu qoran plain ayaa ugu qoran. marka mid allaale midkii ay heli kartid ayaad isticmaalaysaa. yoogadkii walaalahayga markii aan alaabtii aan kusoo daray, hadda alaabtii waan isku qasayaa si fiican ayaan isku dhex gelinayaa. alaabtan wax biya kuma daraayo, yoogadka oo kaliya ayaa wuxuu u noqonayaa biyo. marka hadda alaabtii waa ujeedin saa u qasaayo oo isku dhex gelinayo. maxaa ka fiican wixii gurigaaga ku yaalo wejigaaga iyo korkaagaba ku cadeyso oo ku qurxso oo ku dhaqo oo maasha Allah meel laga helo malahan. hadda walaalahayga alaabtii markii aan isku soo qasay oo si fiican isku soo dhex geliyay sidaas ayay noogu soo baxday maasha Allah. alaabteena nafaqadeena fududeed sidaas diyaar inoogu tahay. haatan oo kaliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. marka sida isticmaal waxaa sameynay marka hore wejiga ayaa iska soo dhaqaysaa, iska soo nadiifinaysaa, ka bacdina hadda nafaqada ayaad wejiga aad marsanaysaa oo saaranaysaa 15 daqiiqo 10 daqiiqo sidii ajaanis u heli kartid ayaad ku joogaysaa. markay kugu qalasho nafaqada ka bacdina waad iska dhaqaysaa, waad iska meeraysaa. isbuucii waxaad ka isticmaalaysaa 3 maalin ilaa 2 maalin sidii ajaanis u heli kartid ayaa u isticmaalaysaa. marka kuu hartana fridge-ka ayaa gashanaysaa, kaama halaabayso dhowr bari oo kale way kuu ooli kartaa. weel yar intaa ku shubtid isku daboola, qaybta hoose fridge-ka dhigo oo baraf kicin, ka bacdina halkaas ka isticmaal. marka walaalahayga hadday la soo tijaabiyo ugala faa'iidaysta nafaqadan aadka u fudud. nafaqadan wejiga way cadaynaysaa, sidoo kale wejiga way cayilinaysaa, wejiga way taagaysaa oo bilaysaa, wejigana qurux ayay ka dhigaysaa maasha Allah. hadda lagama warrami karo. isbuuci 2 maalin 3 maalin haddaa ku tuuratid wejigaaga quruxdiisa iyo dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa iyo sheenigiisa
waa laga yaabi doonaa insha Allah. Hadduu wejiga caata kaa yahayna alaabtan way kuu cayilinaysaa, kush kush bucbuc ayay kaaga dhigaysaa, wayna kuu cadaynaysaa. laakiin hadduu wejigaaga marka hore kuu cayilnaa, kaliya alaabtan wejiga way kuu cadaynaysaa, way kuu nadiifinaysaa, quruxna way kaaga dhigaysaa, kaama cayilinayso. hadda walaalahey waxaan kaga tegayaa sidaas nabadgelyo. waa inoo kulanta dambe oo xiiso leh, yaa anigoo nii sidoo fiideo kale cusub. fiideogaana sii sheer gareeya si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan oo mar walba jecel jirkooda inay waxyaabaha dabiiciga ku dhaqaan oo ku cadeeyaan. walaalahaas ayaa ka faa'iidaysanayo, marka u sii sheer garee. janaalka haddii aad ku cusub tahay hadda soo dhawow, minankaaga waaye, kusoo dhawow janaalka oo noo subscribe garee, inoo like garee. haddii aa hore noola joogtana waad ku mahadsantahay sida quruxda badan oo mar walba inoola joogtid. fiideoga haddii aad daawatidna like-ta hanaga ilaawin. like-ta waa dhiirigelinteena koowaad.